sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayna suuqa weyn ee Bakaaraha ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku horfadhiya qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha. Xaaladan ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay ka gadaal markii ciidamo booliis ah ay shalay tageen meel uu horay dab kaga kacay oo ku taala suuqa Bakaaraha, maadaama boosaska iyo dhulalka halkaasi ku yaala dadkii dhisanaya ay isku maandhaafeen. Dadkii iyagana la sheegay inay horey u deganaayeen meesha gubatay ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamo u badan maleeshiyaad ay halkaasi keeneen, xiisaduna ay haatan tahay mid aad u kacsan. Inkastoo qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha gaar ahaan meesha ay isku horfadhiyaan ciidamada aysan shaqaynaynin, qof ka mid ah dadka ku sugnaa suuqa ayaa ka warbixiyay xaaladda sida ay tahay. maanta ilaa suuqa Bakaaraha maanta waxaa ka dhacay qalalaasa maanta wax soo bilowday muusan ahayn. suuqa Bakaaraha markuu gubtay ilaa maanta inta ka dhaxaysa dhul baa jiray oo la isku haystay dad shacab ay leeyihiin. qoladan dowladda ayaa waxay keensatay ciidamo oo ka soo dhashtay dadka shacabka guryaha iska lahaa ilaa ciidamada habeenkii meesha ku daryaayeen. marka dhibaatada sidoo jirta habeen hore dowladda waxay keensatay shaqaale macallin qalabkoodii meesha xoog ayay ku dhiseen. markay dhiseen saakay dadka guryaha iska lahaa ciidan waxay keensadeen ciidanka meesha dhisay macallin shaqaalihi waa la qabtay. waxaa loo waday kolley waxaas la aadeen ay dhaheen dacwo isla aadeen way tageen. kadib dadweynihii meesha kale ayaa waxay ku dhaqaaqeen inay dudumiyaan guryihii oo meesha laga dhisay. wax kasta waxaaba ka xunba jidadkii waaweynaay oo in la dhisay uridi kawaanka ay kamid tahay. 4 jid ayay waxay ka dhisteen qolal oo min 5 mitir camal ilaa 5 mitir 7 mitir gaarayo. waxaana weligood arkin oo la maqlin waayo. suuqan hadda wax oo shaqo iyo wax ka socda mala ilaa khaliifa ilaa maacuunta. Sidoo kale wararka aynu helayna waxa ay sheegayaan in boob uu ka dhacay suuqa gaar ahaan suuqa khudaarta ay geysteen dad shacab ah oo ku sugnaa goobta, iyadoo aysan jirin ilaa iyo haatan mas'uul si rasmi ah kaga hadlay arrintan ayaa salka ku haysa dhul bannaan oo saameeyay dabkii dhawaan ka kacay suuqa Bakaaraha. Maxamed Daahir Cabdullaahi Dulmidiid Media, Muqdisho.